sheekada gabadhii ruuxaanta ahayd waddada u dhexaysa Afgooye iyo Muqdisho gaar ahaan meelaha Lafoole u dhow waxaa muddo dheer laga sheegayay sheeko cabsi leh oo dadka deegaanka ay ku dhaartaan in ay run tahay. Waxaa la yiraahdaa habeen kasta oo uu mugdi xoogan jiro waddadaas ma socon kartid adigoon dareemin in qof kale kula socda inkastoo aad keliga tahay. Darawalkii taksiga ahaa ee la oran jiray Cabdiraxmaan wuxuu caadiyan shaqada bilaabi jiray fiidkii ilaa waaberiga. dad badan baa ka digay waddada Afgooye laakiin wuxuu aaminsanaa in sheekooyinkaas yihiin buunbuun. Waxay ahayd fiid habeen madow ah oo daruuruhu ay daboolaan cirka. 5 saac habeenimo ah ayuu ka qaaday nin rakaab ah oo ka yimid Afgooye kuna socday Muqdisho. Roobkii daay ayaa waddada ka dhigay mid ciir ah oo madow oo aan lahayn nalal badan. Markii ay sii dhex galeen meelaha geedaha isku darsadeen, darawalku wuxuu arkay gabadha dhar cad xiran oo taagan dhinaca waddada. Waxay u taagnayd si aan caadi ahayn, lugaha oo qarsoon, gacmaha oo calaacasha hoos u jeedo, indhaha oo hoos u foorarsan. Ninkii rakaabka ahaa ayaa si degdeg ah ugu qayliyay, "Walaal ha istaagin. Gabadhaas habeenkii lama qaado." Laakiin Cabdiraxmaan wuxuu u qaatay in ay tahay qof dhaawacmay ama u baahan. Wuxuu si tartiib ah u istaajiyay gaariga isagoo damacsan inuu caawiyo. Laakiin markuu gaarigu istaagay oo uu dhinaca u jeestay, gabadha meeshii kuma waxay u baabaday si aan macquul ahayn. Darawalku qalbigiisa wuxuu bilaabay inuu garaaco si xoog leh, balse wuxuu iska dhaadhiciyay in indhihiisa ay qaldan yihiin. Dabayl qabow oo aan laga filayn ayaa gudaha ka soo gashay gaariga inkastoo daaqaduhu xirnaayeen. Rakaabkii hore fadhiyay wuxuu noqday mid aamusay oo aad u walwalsan. Markii ay u soo dhow yihiin Lafoole, darawalku wuxuu maqlay cod hoose oo ka imanaya gadaasha gaariga, cod aan ahayn mid aadan ah. Wuxuu si tartiib ah u eegay muraayada dambe. Gabadhii dhar cadka ahayd baa kursiga dambe fadhida. Indhaheedu waxay ahaayeen iftiin cadaan ah oo aan dabiici ahayn. Wejigeedu wuxuu ahaa mid aan shucuur lahayn sida qof aan noolayn. Cod qalalan oo googan ayay ku tiri, "Maxaad u istaagi weyday markii aan ku sugayay?" Darawalkii gacmihiisa waa gariireen. Rakaabkii hore fadhiyay wuu suuxay cabsi darteed. Cabdiraxmaan wuxuu isku dayay inuu gaariga joojiyo, laakiin cagihiisa ayaa noqday kuwa culus. Mark finally uu istaajiyay, wuu ku booday inuu gadaal u jeesto. Gabadha mar kale way ka baabaday, sida inaanay weligeed jirin. Markii uu gaaray Muqdisho, darawalku wuu gariirayay oo aan hadli karin. Sheekadan ayaa faafday, waxaana dadka Afgooye sheegeen dhowr nooc oo ah. Gabadhu waa ruux gabadh shil gaari ku dhintay sannado qaar kalena waxay dhaheen waa jin ku wareega geedaha Lafoole oo isu beddela qof bani'aadam ah. Cabdiraxmaan weligiis mar dambe habeen dambe ma uusan wadin waddadaas. Wuxuu sheegay in indhihiisa aysan weligood ka iloobin indhahaas cadcad iyo codkaas qabow ee yiri, "Maxaad u istaagi weyday?"